waxaa la yaabaa inankan ka taliya Soomaaliya xalay baa waxaan daawanayay isagoo hadlayo la hadlayo gudidii uu qabanqaabada u bixiyay 20 Juun kowda Yuulyo waa maanaya wuxuu yiri way dhama Soomaaliya way dhameystiran tahay dawladnimadoodu way dhan tahay inta harsana waa la dhameystiraya dadka wax la abaal mariyo lagu abaal mariyo wanaag iyo xumaan lagu abaal marinay noqonaya sidii adeerkii buu hadlaayay xalay waxaad moodaysay kacaankii oo curtay inankaasi inuu yahay habeenkii la doortay wuxuu yiri iyadoo hareeraha ka taagan yihiin labadii madaxweyne isaga ka horreeyay oo Sheekh Shariif iyo Maxamuud Xasan Sheekh ayaa wuxuu yiri dawladdii siyaad barre taydana ku xigta yani wax u dhaxeeyay ma jiraan halka uu marayo iyo hawada uu marayo ayaan la yaabanahay waxaan leeyahay ummadda Soomaaliyeed hal baan leeyahay ummadda reer Soomaaliland hal baan leeyahay nimanka halka ka taliyana hal baan leeyahay reer Soomaaliya waxaan leeyahay wargees idin wadi maaya waa niman idinku dul ganacsanaya doorta cid la fahmi karo la wada hadli karo oo la kala guran karo wixii ummadan ka dhaxeeyay reer Soomaaliland waxaan leeyahay siyaad barraad dib u dhashay ninkii aynu magaca ku sheegi jiray naanaysta afweynaha aynu oran jiray ee dalkan burburiya dhashay waa Farmaajo hadduu soo hanjabaya isagoon dhaafin muxuu ahaa filla Soomaaliya gudaheega lagu ilaaliyo waxaan leeyahay aynu dugtoonaan inama yareero aad wax u qora weeyaano muxuu ahaa waxaan la yiraahdaa social media galo lacag ku socoto ummadeenu ha ka foojignaato falalka ay inamadaasi wadaan ha ka midowdo wixii soo maray way garanaysaa waxaan ummadda Soomaaliya xasuusin doonaa oo aan u sheegi wixii ay geysteen dawladda xamar ka dhalatay iyo hadda taageeriba wixii dhacay baan halka media u soo bandhigi doonaa maanaan doonayn inaan muxuu ahaa dadka calool xumo qaadsiino maanaan doonayn dadka iyaga inaan ku reebno oo xumo waxay nagu kalifaysaa imika inaan ummaddeeda dagaal gelino oo nu sheegno wixii dhacay haddii la joojina dib u dhici doontaa war aan kala dhowrsanaano ummadda Soomaaliyeed shalayna labaynu kala hayn maantana taayadii baan la soo noqon cidii kalgacaylka badnayd ee walaaltinimada jecelayd ee muxuu ahaa soo doonatay tiri saddexdii kalena aynu helno calankii Hargeysa laga taagay buu ahaa ummadii cid walba la hadlaysay ka calahayd baa yahay Soomaaliland waxaan leeyahay aryadan kala quusana qoomalaano waxaanu la wada soconay inaynu 26 Juun u dabaal degnay 59 guura waxaanu kala la soconaa inaynu 18 Mayna aynu u dabaal degnay 28 guuradii ka soo wareegtay dib u soo noqoshadii xorriyadii Somaliland ilaa inta waxay ahayd dal madax bannaan waxay ahayd 17 dawladood ee sanadkii Afrika loo bixiyay ee ugu horeeyay ee ka xoroobay gumeystayaashii reer Yurub ee dalalka Afrika maamulayay Somaliland waxaynu ka warhaynaa inay xorriyadda ka hor qaadatay maxmiyadii Soomaaliya ee Talyaanigu gumeysan jiray waxaynu ka warhaynaa in aynu maxaan ku raahdaayay si madax bannaani ah oo walaal jacayl ah oo hamigii iyo qamigii ahaa Soomaali weyn in la helo inay Somaliland ugu biirtay dawladdii markaa ka xorowday Talyaaniga waxaynu ka warhaynaa inay innakana niyad wanaag naga ahayd xamarna raggii ugu horeeyay ee Somaliland ka socday marka tagan in shuruudo lagu xidhay inaynu shuruudahaas oo dhan aynu wada aqbalnay waxaynu intan imika dambe ee xorriyadda Somaliland dib u la soo noqotay dadweynaha reer Somaliland maamuladeeda dawladood ee kala dambeeyay madaxweynayaashii kala dambeeyay ay maxaan ku raahdaayay xilka dalka soo maamulayeen Somaliland waxay adduunyada oo dhan u sheegtay inay diyaar u tahay
wada hadal iyo nabadgeliyo inay arrimahooda ku dhammaystirtaan Soomaaliya waxaynu mar walba isticmaalnaa kelmadda tiraahda walaalaha iyo waxaanu diyaar u nahay inaanu wada hadalno sidaynu la soconno madaxweynaha jamhuuriyadda Somaliland Muuse Biixi Cabdi iyo wafdigii ballaadhnaaye uu hogaaminayay ee laga marti qaaday dalka galbeedka Afrika ku yaala Guinea Conakry in dowladda Soomaaliya ay ka muujisay curfi aad iyo aad u xun dagaal xoog leh inay ku qaaday in ay tiri waxaanu ka ashkateynaynaa midowga Afrika dalka Guinea Conakry halkaynu inaku mar walba ka leenahay walaalihiin waynu wada hadlaynaa ee midowga Yurub Mareykanka maxaan ku dhahday midowga Afrika ururka goboleedka IGAD aynu intaaba u wada sheegno madaxda dalalka aynu mar walba madaxweynuhu socdaalka uu ka tagayna aynu mar walba qodobka aynu adeegsano diyaar baan u nahay walaalaha inaan wada hadalno waxa ay ahayd jawaabta u dhiganta inay iyagana ka soo noqoto oo ah walaalaha iyaga Somaliland waanu wada hadlaynaa diyaar baan u nahay inaan wada hadalno waxa ayaan daraa qofkii Somaliland salaamaba dowladii Somaliland salaantaba dowladii Somaliland la kulantaba in mar walba maxaan ku dhahdayay cabasho iyo maxaan ku dhahdayay digniin iyo ashkata la siinayo madaxweynaha dowladda federaalka ee Soomaaliya Farmaajo waa taa Twitterkiisa warqadii uu ku qoray oo ah waxaanu ka soo horjeednaa nooc kasta oo xadgudub diblomaasiyadeed ah oo ay markhaati furayso arrimihiin ayaamahan dhacay waxaanu ugu baaqaynaa dalalka aanu walaalaha nahay in ay ixtiraamaan Soomaaliya madax banaanideeda iyo qarannimadeeda Somalia sovereignty and statehood kiiska Somaliland waxa uu u yaalaa Soomaalidan ee uma yaala dalalka kale ihtijaajka iyo language-ka noocan ah ee aan diblomaasiyadeed ahayn waxa maxaan ku dhahdayay uu madaxweyne Farmaajo ka soo jeedinaya Somaliland inay madax banaani hesho waxa nasiib daraa Soomaaliya dowladda maanta Farmaajo madaxda ka yahay 17 dowladood baa ka horreeyay 17 dowladood mid madaxweyne madaxtooyada villa Soomaaliya dhaaftay male nin kale arrintan soo jeedinaya villa Soomaaliya waxa ku ilaaliya ciidamada AMISOM Somaliland madaxweynaheedii u horreeyay oo la kulmay xilligii maxaan ku dhahdayay burburkii weli madaxtooyadiisa askari aan Somaliland haynin ma ilaalin gobol kastoo Somaliland uu taganay isaga iskii u tagayay ilaa iyo madaxweynaha maanta u dambeeya waxaan ka xunnahay walaalnimada annagu aanu u jeedno inaanay u jeedin walaalaha iyaga Soomaaliya waxaanu ka xunnahay dadka reer Somaliland oo dhibaato fara badan soo dhacday oo burbur soo dhacay oo xasuuq soo dhacay oo magaalooyinkeeda siday u dhan yihiin oo la burburiyay soo maray laba magaalo ayaa u badbaaday Somaliland waa Laascaanood iyo maxaan ku dhahdayay iyo Boorame rag baa waxay soo jeediyeen markii ugu horreysay halkan la yimi war meeshan meel dad u hooyan kara ma aha ee Boorame ka yimi dadka hal laga soo raro oo halka Boorame hal la isku cidhiidhiyo niyad wanaagu markuu jiro marka rag sida ku talinayeen waa asbaabaha keenay in Somaliland dowlad qoto dheer ka dhisanto in madaxweynayaashu si nabadgelyo ay isu bedelaan
in nabadgelyo caamihii ka jirto in baarlamaankeeda la doorto madaxweynaheeda la doorto golaheeda baarlamaanka la doorto doorashada maanta aan gelinana tii 7 ay noqonaysaa soo socota bulshada reer Somaliland waxaan leenahay walaalo u sameeyaan islahayno dad walaalo ahoo isku afahoo isku diinahoo dawladda soo wada ahaan jireen naqaye wixinana waynu iska kala goran doonaa iyagana macaamil wanaagsan baynu yeelanaynaa laakiin waxa soo baxay waan idin sheegayna madaxda dawladda Soomaaliya madaxda kaahe sidaanu annaku walaalo ugu ahayn aanu idinkana idinka wakiilka ahayn walaalihiin maaha mustaqbalkiinay ka soo horjeedaan dawladnimadiinay ka soo horjeedaan midnimadiina reer Soomaaliya Somaliland bay ka soo horjeedaan dawladnimadiina iyo nidaamka aad dhisateen bay ka soo horjeedaan mustaqbalkiina iyo horumarkiina ka soo horjeedaan haddaba waxaan leenahay dadka reer Soomaaliya ee shicibka ah ee dadweynaha ah waxaan walaalayaal idin leenahay dadka maanta aan idin maamulin goboladiina aan wada maamulin xamar iska fadhiya waxaan leenahay dadka nabadgelyo idin horseynaya dadalkiina jaarka idin la walaaleynaya marna ma ahayd dib u tashada oo dad annana aanu afgaran karna idinna dantiina iyo mustaqbalkiina wata doorta waxaan leenahay ku soo ururinayaa annaku shuruuda kumanaan xidhaynin dawladaha farmaajo iyo wasiiradiisu ay maalin walba u tagaan kama ashkatoono dawladaha maxaan ku dhahdaay cilaaqaadka la gashaan kama ashkatoono dawladaha maxaan ku dhahdaay aynu hawlaha aan la gashaan kama ashkatoono dawladaha idinkama ashkatayno maalin walba wafdi kasta oo Soomaaliya taga waxa ay ka ashkateeyeen Somaliland dawlad kasta oo ay tagaan ama Afrika ha ahaato ama Yurub ha ahaatee waxay ka ashkateeyeen Somaliland annaku markaa shuruudana kumanaan xidhaynin laakiin waxaanu dib u eegi doonaa qiimeyn dib ugu samayn doonaa farmaajo iyo ragiisa dawladda Soomaaliya madaxda ka ah wada hadaladii inay noo sii socon karaan iyo in kale ayaanu dib u eegaynaa mar walba annaku waxaanu ka fakaraynaa danaha shacabka farmaajona waxaanu leenahay arrintaadan iyo mar kasta oo aad hadashaan dadka reer Somaliland waxa ay xasuusinayaan dhibaatooyinkii ku soo dhacay waxay xasuusinayaan xabaalo wadareedyadii waxay xasuusinayaan burburkii dhaqaale iyo burburkii magaalooyinka ee ku dhacay waxay xasuusinayaan miyi iyo magaalaba dhibaatadii loo geystay oo aad adiguna qayb ka ahayd oo aad adiguna buugaagtaad qortay sida xun ee aad u qortay arrimihii Somaliland aad ka qortay iyo halka ay ku xusan yihiin oo qoran yihiin wasiirka arrimaha gudaha wasiirka warfaafinta baada saxaafadda wad salaamantiin horta in yar haddaan dib ugu noqdo taariikhda dad Soomaaliya ilaahay wuu inaga wada dhigay laakiin isticmaalkii hortii dad nin kastiba xoolihiisa dhaqdo yaan ahayn isticmaal baa yimiday qaybaha Soomaali loo qaybiyey Somaliland waxa imika aan magacawnay maaha waa Somaliland tii jirtay Somaliland sida taariikhdu qorayso dee dawlad madax bannaan bay noqotay cid ku khasbaysay inay cid ku biirtana ma ay jirin laakiin saniyad wanaag iyadoo Somaliland u danaynayso in shicibkii Soomaaliyeed ee isticmaaladu kala haysteen meel la isku keeno wan ogeyn 54kii nagtadii ka dhacday moogtahay reserve area oo dareenkaasi la hayo iyaan rabnay in awood Soomaaliya isku ururta ay wax muhiim ah taasaa keentay xorriyaddii iyadoo cidina nagu khasbay oo si independent u qaadanay inaan nidhi mool
walaalihiin ku biiro kuwii kalena raadiya nasiib darra niyad wanaaggii aan la tegnay aan la ku abuuray waxa imika lagu marmayo way haddaan halkayga maalintii iska joogno marba ma joogeen niyad wanaaggii aan ku tegnay ee bilaa shuruudda aan ku geynay waxay Somaliland kala kulantay waxyaabo aanan la filayn waxaan filaynay in niyad wanaag aw la kulmo kale markii aan arrintii bilaabantay kowdii bishii 7 1960 maamulkii la sameeyey waad ogeydeenoo Soomaaliya waxay qaadatay madaxweynihii waxay qaadatay prime ministerkii waxay qaadatay khaariji waxay qaadatay speakerkii golaha maaliyadii wax kasta waa la sabray waxa weeyaan dawladnimadu waa in moogtahay dee dadka ku dhan wax u dhaxaysa ay noqoto 30 sano iyo saa lagu jiray nasiib dar wax alla wax moogtahay soo gaar laba high school buuga tagay moogtahay ingiriisku halka wax ugu kordhay ma ay jirin jaamacad kaliya haatee oo ku taalo moogtahay wadankii Somaliland ma ay dhicin 30 sano wax dhaqaale ah oo horumar ah oo soo gaari ma jirin intaa wax raacday dee dadkii markay dareemeen in moogtahay sidani aan lagu sii socon karaynin dhaqdhaqaaq baa yimiday xorriyaddoon baa yimiday markaa waa dee isticmaalku cadul maaha ka waxba aan ku ogolayna waa isticmaal dhaqdhaqaaqii waxaa ka dhashay iyadoo dhibaatooyin aad u ballaadhan oo caalamka ogyahay dadka isku jinsiga tiini haddaad isdiidiin xitaa oo xitaa dhibaatayda dhex marto dee turis bay leedahay laakiinse moogtahay nooc dad ajnabiya lala dagaalamayo oo ummad kale la dagaalamayo magaalada Hargeysa 1991 markii la soo noqday dee dhulkay ku sinnayd wax alla wixii infrastructure samaysmay ee dadku samaysmay dhulku ku sinbay haddii moogtahay dee ma dawlad ajnabi oo kale ku soo duushay haddii ahaan lahayd dee wax macquul ahaan lahayd على كل حال Somaliland dee iyadoo isku tashatay oo cid kale waxaan ayna la qaban amnigeedu way samaysatay dawladnimadeedii bay samaysatay dadkii way heshiiyeen dadkii waxay samaysteen maamul ay ku naaloodaan oo maanta aan nabadgelyadaan haysano geeska Afrika waxay tahay noocyada lagu daydo dadkana samaystay Soomaalida meel kasta oo ay joogto ama Jabuuti ha joogto ama Kilika ha joogto ama Soomaaliya ha joogto ama moogtahay Kenya ha joogto waa dad walaalahaya dad moogtahay aanu jecelahay weeyaan waxa jira dawlado badan oo carab bay wadayihiin annaguna waxaan nahay Soomaali dee dawlado waa noqon karaa horeyna waanu ahayna waan isku darsanay dawlado waa noqon karaa waxaa daba socda intan dambe iyada oo moogtahay ay ahayd in raaligelin ballaadhan ay ka dhacdo wixii dhacay haddana moogtahay waxa socda waxaanan moogtahay aad u qurux badan kamana tirsanayno waxyaabaha aan aad foosha xun leh kama tirsanayno shicibka Soomaaliyeed ee Soomaaliya ku nool waa dad walaalahaya halkanay degan yihiin guriyay ka dhisteen jaamacaday ka galeen baabashtari bay ku leeyihiin waa dad walaalahaya laakiinse maamuladii iska dambeeyey si halkii ay wax ka sixi lahaayeen ee dhibaatadii waliba maamulkii geystay ay ka sixi lahaayeen waxa had iyo jeer ay ku sii darayaan kala fogeyn kale oo aad u ballaaran xalay waxaan dhageysanayay wasiir khaarijiye Soomaaliya hadlaya oo kaba hadlaya si ka daran sida uu hadlay Farmaajo oo amal moogtahay dadkani moogtahay tashaday ee maamulkooga sameystay wadankooga sameystay xoolo ay leeyihiin oo kale u hadlaya waxa laga hadlayaa sidee dawladba u aragtiiba sidee dadba u la hadashiiba
war somaliland waa ummad xora waa dal ciddii ay isfahmi karaan way la hadli annagu haddaan somaliland nahay waxaan leeyahay war walaalayaal dee marka hore annagaa xorriyadda keennay annagaa idiin keennay unitiga aad ka sheekaynayseen annagaa waa muqadasad leedihiin annakii bayna cajabi weydo dib baan ula noqonay ee wax dhibaatooyin bayna dhex marayn war iyadoo layna dhex joogo coffee shop yaan iskugu tegine inakoo layna dhex joogo caalamkiina dhex joogo aan wada hadalno maalintii dhaweyd waad ogeydeen waxa weeyaan wadamada daneeye moogtahay soomaaliya iyo somaliland iyaa rabay moogtahay inay malbaadhaan cilada meesha taalla oo ina dhex fadhiistaan way u gooyeen wada hadal ma ogolo tallaabadii kasta ee aan qaadnay ee moogtahay asxaabta iyada aan la leenahay dowladay la saaxiib yihiin dowladaha way wada hadlaan kama hadalno dowlad alla dowladdii aan la hadalno iyay moogtahay leeyihiin moogtahay dembi bay gashay waa dembigay gashay maxay tahay labadaa dal baan nahay saaxiibayaal waxaa la gudboonaa maamulada faraha badan ee soo maray soomaaliya waan u naxaynaa shicibka soomaaliya inay shicibka soomaaliya u dadaalaan oo dhibaatooyinka haya ay ka saaraan oo taa mashquul ku noqdaan oo ka saaraan dhibaatada hayse ee moogta qarxa baacmustari bay ka dhigteen lacagaha ku shubmay soomaaliya waa billions of dollars laakiinse maxay dhashay in individualiskaa moogta hadlayay unay ka faa'iidaystaan shicibkana waa kaa safar garaynaya war waxaa idinla gudboon in shicibka aad meel dhigtiin intaad annaka nagu mashquulka noqoteen waxaana jecelahay shicibkaasi inuu dego uu nabad helo oo uu helo dadkii wax u qaban lahaa dadkii wax u qaban lahaa mas-uuliyaddoodii waxay ka dhigteen somaliland sidii moogtahay loola dagaalami lahaa un baas inay ka shaqeeyaan marka hore waxaan salaamayaa dhammaan bulshaweynta reer somaliland marka labaadna waxaan hambalyeynayaa dhaqdhaqaaqyada diblomaasiyadeed ee uu hogaaminayay beryahanba madaxweynaha qaranka somalilan mudane muuse biixi cabdi ilaahayna waxaan ka rajeynayaa inay diblomahaasi ku soo dhammaadaan si wanaagsan oo midho dhala waxaan runtii aada iyo aada u cambaaraynayaa oo cod dheer aan ku cambaaraynayaa inanka leeda farmaajo ee yacnaha ku hoos jira taangiga mataqaana amisom ee aan xataa qasrigiisa dhexdiisa xorriyadda ku mari karayn inuu had iyo jeer daba cararo oo mataqaanaa uu daba ordo oo yacnaha uu ku daba xiiqo madaxweyne ummaddiisu ay dooratay oo xisbi qaran ka soo baxay oo maandhaydkii iyo kalsoonidii ummaddiisa haysta oo ku metelaya goob kasta oo uu tago runtii waxa weyan ayaan daro aada iyo aada u weyn ninkan aada iyo aad baan u cambaarinayaa runtii waxa uu ku mashquul yahay siyaasada madhalaysa waxaa ka wareysaan baryahan dambe inuu aada iyo aada mashquul ugu ahaa siduu u baabi'in lahaa nidaamkii federaalka ee ay doorteen dadka koonfurta dega oo maamul goboleedyadii jiray dadkii loo doortay uu dagaal ba-aan kula jiray oo dhammaantood uu ka dhigay dad iyaga hoos yanaha ummad isaga hoos joogto oo dad uu samaystay noocaas qodobkaasi waxa weyn ayaan daro weyn ku habsatay ummadda soomaaliyeed weeye dadka soomaaliyeed ee saadka degan waxaan u sheegaynaa war midnimada maanta inay kani uu daba ordaayo ama in badan oo la mentality oo la caqliga ay ku riyoonayaan xagee ka xumaatay ma hargeysay ka xumaatay mise xamar iyada oo la gelbinayo oo qurux badan oo qalbiyo wacan ay sidaan ba xamar idinku keenay xagaa kaga waramaysaan maanta qaabka maanta u shaqeynaysaan wax alaaliyo waxa ku gaadhaysaan ku xaqiijinaysaan oo arrintaa kaga meedhalinaysaa ma jirto arrintaasi waxay furo u noqonaysaa inay ummadda soomaaliyeed sii kala fogeyso dadka markaa ehno caqliga ah ee reer soomaaliya waxaanu leenahay war inamada yare inankaa farmaajo hormuudka uu yahay ee soomaalidii la doonayay maanta in la isu ururiyo oo mataqaanaa ay si degan u wada hadasho oo loo kala guro oo bal dowladnimo ku kala quustay ee walaaltinimadooda soomaalinimo un ay mataqaanaa dee si wacan ugu wada noolaadaan inankaasi taasuu meesha kasii saaraya runtii marka waxaanu leenahay dadkaas war inankaasi waxa weeyaan waxbuu qaribayaa inankaa inta ay goor tahay ee meel dheer aydan ka doonin mustaqbalkiina
intaana waddankiina idinku dul xaraashin wax badan baa imikaba u qarsoone ummaddu ha kacdo oo ninkaa iyo tiimkiisa ha ka tashata ayaanu u soo gudbinaynaa qoladaas qodobka labaad waxaan u sheegayaa nin kasta oo ay u cuntami weydo somalilan iyo horumarkeeda iyo deganaanteeda iyo stabilitygeedu somalilan baryo kama imanin wax baryo la yahdo somalilan kuma imanin quwadihii afrika ugu xooga weynaa mid ka mida soomaaliya oo ah ayay waxa weeyaan casar ka dhaqaatay halkan mara waxaa fiicnaan lahayd oo farmaajo tiimkiisa xiiseenaya in mar labaad ciyaarta dib loo galo oo nin waliba wuxuu qaadi jira ku qaado waxaan kaga baxayaa waxaa soconaya ololo aad iyo aad u foolxun oo runtii aan bays lahayn oo waxa weeyaan maran oo ay dowladda soomaaliya maanta ka jirtaa hogaaminayso oo runtii habdhaqankeedii qaabkii waxu wada aanay hore inoo soo marin markaa waxaan leeyahay arrimaha waa in fiiro gaara loo yeeshaa oo beesha caalamku ay aad iyo aad u eegtaa labadii entity ee loo aqoonsaday meeshan shirkii lana ka dhacay beriga dhaweyti ee lagu kala gurayay soomaaliya iyo qaabkii wada hadallada loo diyaariyey in ummaddani ay u wada hadasho oo mataqaanaa lagu kala guro 7 sannadood ma dhaleysan waxba ka soo bixin kadib mataqaanaa markay halkaas maraysay inuu maanta farmaajo doonayo inuu soo aftiro hawshaas taasina waxay u taalaa beeshii caalamkii 54 dowladood ee goobjoogga ka ahaa ha ogaadaan inaanay xagga somalilan waxba ka xumaanina ay ka xumaadaan xagga farmaajo iyo tiimkiisa waxaan kaga baxayaa dhammaan bulshooyinka reer somalilan waxaan ugu baaqayaa gudo iyo dibadba in loo diyaar garoobo in cod dheer lagula hadlo iyo luqaduu fahmayo farmaajo iyo tiimkiisa ummadda soomaaliyeedna la fahansiiyo inamadaas hagardamada ay ku wadaan soomaalida ay xukumaan iyo qowmiyaddii soomaaliyeed wixii la odhan jiray kala furfurkeeda iyo kala fogeynteeda waxaa kaloo aan si gaara runtii idinka codsanayaa in la difaaco qarannimada somalilan in qadiyadan laysu taago in xaalad kasta iyo goob kasta oo ay nala gelayso sidaynu caanka ku ahayn aynu u diyaar garowno haddii ilaahay